wada qaybood oo janna uu Ilaahay Quraanka ku sheegay. Midka koowaad waxaa la dhahaa Jannatul Firdaws, waxa waaye qaybta ugu koreyso oo ugu sareyso. Innal ladhina aamanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdaws nuzula. qaybta labaadna waxaa la dhahaa Jannatu Aden. qaybtaana waxay leedahay webiyaal oo tiro badan oo aad u qurux badan. Jannatu Aden tajri min tahtiha al-anhar. qaybta saddexaadna waxaa la dhahaa Daarus Salaam. ilaahina wuxuu ku sheegay suuratul Yunus. Wallahu yad'u ila Daaris Salaam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. qaybta afraadna waxay ku taalaa suuratul Yunus. qaybtaana waxaa la dhahaa Jannatun Naciim. nabiga alayhi salaatu wasalaam isagoo akhlaaqda inteeda wanaagsan inagu dhiirigelinaya ayaa wuxuu yiri waxaan u damaano qaadayaa jannada xaggeeda hoose guri ku yaala qofkii iska daaya muranka iyo khilaafka xataa hadduu gar u leeyahay. waxaan kaloo u damaano qaadayaa guri jannada bartankeeda ku yaala qofka beenta iska daaya xataa hadday kaftan ka tahay. waxaan kaloo u damaano qaadayaa guri jannada xaggeeda ugu sarreysa ku yaala qofka uu wanaagsanaato akhlaaqdiisu. qofka raba in uu jannada si nabadgeliyo oo dibliiyo ku galo ha fuliyo dardaaranka nabiga alayhi salaatu wasalaam ee uu yiri dadow salaantana faafiya kina gaajaysanay baahanna quudiya qaraabadiinana xiriiriya dadkoo hurdana tukada jannada rabbigiina waxaad ku galaysaa nabadgeliya. النعيم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. qaybta shanaadna waxaa lagu sheegay suuratul Najm waxaa la dhahaa Jannatul Ma'wa. لقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. qaybta ugu dambeysana waxaa la dhahaa Al-Cilliyiin. Al-Cilliyiin iyo Al-Sijjiin jiraan. Al-Cilliyiin waxa waaye meesha ruuxa fiican uu Ilaahay ku sugaayo ilaa yawmiddin, ilaa yawm al-qiyaama. Sijjiinna waxa waaye meesha uu ruuxa xun ku sugaayo Ilaahay ilaa yawmiddin. العليين إلهي وحكو شيء سورة المطففين. العليين وحوى مال مركو قفك انتو روح ياشكلو أركي كريا أهل كيسا يددكو أدوني ذكو يقانا لكن قف أو أشقي السلاء أهلي كرميشاس وحالة لها العليين سورة. waxaan kugu leeyahay carabku jecel oo kuuna steexaynaya quraanku waa shayga ugu macaan dhex yaala adduunka ha ka tagin adduunka adoon dhadhamin wixii ugu macaan dhex yaala. Allah ayu u naxariiso qof walba oo dhintay oo